السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي وناكسن في الموعن سود هذا أغيرت كحرن قنال كهنا دكتور بول ودكتور صادق أحمد بول ومركل إذن له كسود هذا 10 كأفراد أنا واحد لأنه جي تراجع أما إنفلاميشن كودعة قيبته ماركته ديفشيت كودعة waxaan hore uga soo sheekeynay cudurrada ku dhaca ama cudurka ku dhaca afka loo yaqaano mouth ulceration ama ulceriska ama nabarada ku dhaca afka iyo waxaan ka soo sheekeynay esophagitis oo ah in inflammation uu ku dhaco dhuunta ama hunguriga uu ku dhaco maanta waxaan qaadanaynaa insha Allah ta'ala inflammation ku dhaca stomach oo loo yaqaano gastritis ama waxay Soomaalidu u taqaano gastriga u taqaano gastritis waxa sababa ama ugu badan ee keena waxa waaye maxaan ku raadayay dhowr factor ama dhowr qodob ayaa keena waxyaabahaasna waxa kamid ah kow in qofka uu maaragtay isticmaalo alcohol far badan hadii maaragtay qofkaas uusan qof islaam ahayn for example ama waxyaabaha ku badan yihiin alcoholka sida maxaan ku raadayay coca-cola iyo wax la midka waxa kale oo iyadana keena bacteria oo ugu caansan H pylori ama Helicobacter pylori loo yaqaano iyo some exercise-ka da'da iyadana way keentaa waa kuwa ugu badan ee keena gastritis-ka waxa dhacda marka inflammation-kaasi sameysmay wuxuu dhaawac u geysanayaa dahaarka ama xuubka caloosha ku jira oo lining mucosa lining loo yaqaan ayuu dhaawac u geysanayaa taasoo sababaysa marka in dhaawacii maaragtay sababo qofkii inuu dareemo calaamadahan soo socda kow waa in uu dareemo xanuun ama maaragtay pain uu dareemaa labo inuu baanin dareemo ama gubasho oo aad u malaysid meelaha qaar oo yar yar inay gubanayaan aad u malaysid hadduu alla idmo marka qofka maxaa maaragtay wax looga qaban karaa marka haddii xalaas aan dareemane oo uu dareemayo xanuun dareemayo gubasho dareemayo waxaa kaloo dhici karta xitaa mararka qaar calaamadaha waxa soo raaci kara in uu saxaradiisa ay soo raacdo dhibco ama barra madmadow ee saxarada soo raacdo so taas waxaa la dhihi karaa markaasi wuxuu sameeyay penetration ama duleelin ayuu sameeyay waxa dhaawaca uu u gudbay markaasi qaybaha dambe stomach dhiig baa yimid markaas oo soo raacay saxaradii soo raacay waxa lagu daweyn karaa horta kow in qofka life cycle-kiisa wax laga bedelo oo noloshiisa wax laga bedelo waxyaabaha uu isticmaali jiray haduu exercise sameyn jiray laga bedelo hadii maaragtay alcohol uu isticmaali jiray laga bedelo hadii maxaan ku raadayay waxyaabaha spicy foods-ka ama dhanaanka badan iyo waxyaabaha keeni karo laga bedelo haduu qof waayeel yahay in la siiyo cunada ay maaragtay ku badneen ama uusan ku jirinba waxyaabahan dhanaanka iyo maaragtay bisbaaska inta badan laga daayo hadii ay tahay bacteria tahayna waa in la siiyaa maxaan ku raadayay dawadan loo yaqaano omeprazolka iyo waliba antibiotics-ka qaar omeprazolada ugu caansan waxyaabaha maaragtay loo baahan yahay in qofkan wax looga qabto laguna daaweeyo waxa kale oo iyadana jirto oo aad loo isticmaalaa maxaan ku raadayay in qofkan dhaqtar lala tacaalo mar hadii uu keeno maxaan ku raadayay bleeding ama dhiig uu keeno saxarada dhiig lagu arko waayo xaaladaasi aad bay critical ama riski badan u tahay khatarteedu way badan tahay waxa kale oo jirta in qofka maaragtay lagala taliyo hadii uu isku arko maxaan ku raadayay calaamadaha gaaska waxyaabaha gaaska keenaya dhan inuu isku bedelo joojiyo dawooyinkaas gaaska qaato si calooshiisa maaragtay u badbaado una nabad qabto oo digestive system-ka sidiisa ugu soo socdo insha Allah ta'ala intaas ayaan ku soo koobaynaa casharkeena afraad ee maanta oo uga hadlaynay gastritis-ka ama gastriga waxyaabaha loo yaqaano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.